wiil dhalinyaro ah oo dhulka alla ku daboolay meydkiisana laga waayay qabriga markii la duugay daqiiqado kadibna waxaa soo baxay waxay la argagaxeen dhammaan ku soo dhawow qisadan qulubta gilgilaysa ha hilmaamin daawade inaad muuqaalka like saarto sii faafido si ay uga faa'iideystaan oo ugu cibro qaataan dhammaan muslimiinta channelkana subscribe saar oo gambaleelka u furo si ay kugu soo dhacaan qisooyinka iyo dhacdooyinka aan halkan soo gelino waa qiso uu sheegay wiil dhalinyaro ah wuxuuna ku dhaartay inay ka dhacday labadiisa indhood hortooda weliba ay arkeen asaga iyo kuwa qabuuraha ilaaliya wiilkan dhalinyarada ayaa yiri waxaan ku noolaa xaafadda muhandisiin ee ka soo horjeeda qaybta lixaad ee qabuuraha Waadi Salaam markastana waxaan maqli jiray hadallo iyo qisooyin la iiga sheego qabuurahan laakiin indhahayga kumaana arkin waxbana ilaa la soo gaaray sanadkii 2009 anigoo ku sugan daaqada qolkayga si toos ah ayaan qabuuraha u fiirinayay maalin anigoo soo jeeda oo qolkayga ku sugan teleefoonkaygana isticmaalayo taagan daaqada qiyaas ahaan saacadu waxay ahayd 1 habeenimo anigoo wadada fiirinaya ayaan arkay dad la taagan janaaso wadada geesteeda waliba dhanka qabuuraha laga galo waxaana soo degay rag iyo dumar raggu santuuq ay gaariga la saarnaayeen ayay dhulka soo dajiyeen wixii aan arkay ayaana ahaa wax aan la yaabay oo aad ula argagaxay raggan iyo dumarkan ayaa santuuqii uga tageen dhulka waliba gaariga dhinaciisa kulligoodna qabuurihii ayay galeen ayagoo gacmaha kor u taagaya oo takbiirsanaya raggana waxaa la moodayay inay santuuq ku wataan garbahooda sida dhabtaana wax santuuqa ma aysan sidin garbahoodana wax saaraa lama arkin santuuquna wuxuu yaalay oo ay uga tageen meel qabuuraha ka baxsan waan yaabay waana fiirinaya si aan u ogaado waxay dadkaanu meesha dhigeen maxay santuuqa uga tageen qabuuraha banaankooda kaligiis maxayna ugu ekaayeen inay santuuq sidaan waa arrin la yaab leh waana markii iigu horreeyay oo aan noloshayda arkay mar laga joogo muddo 1 saaca ayaan arkay dadkii oo ka soo baxaya qabuurihii ayagoo degdegaya qaylinayana santuuqiina waxay ku arkeen gaariga dhinaciisa wayna isugu yimaadeen ayagoo santuuqa hareereeyeen waxaana ii muuqday muuqaal aan wax tafsiir lahayn waxaana la joogay kan qabuuraha waardiyeeya anna waan soo degay si aan u caawiyo markaan soo gaaray ayaan salaamay laakiin qof kasta wuxuu ku sugnaa xaalad la yaab leh naxdin ayaana ka muuqatay waxaana ka mid ahaa kuwa wax duuga oo qabuuraha waardiyeeya waxaana weydiiyey wixii dhacay wuuna diiday inuu wax ii sheego waana ku celceliyay ilaa uu ii sheegay waxaana isku dayay inaan saacideeyo oo la joogo ilaa ay ka dhamaynayaan duugista si aan uga fahmo ficilkooda dhacdadan la yaab kale santuuqi ayaan qaadnay qabriga ayaan tagnay meydkiina waan duugnay mana aanan arkin arrin la yaab leh midka meydka duuga ayaan ku celceliyay inuu ii sheego waxa dhacay iyo waxay la naxsanaayeen laakiin muxuu ku yiri laakiin wixii uu ii yiri ayaan ka argagaxay oo ka naxay wuxuu yiri dadkan ayaa imaadeen qabuuraha santuuqiina waxay dhigeen qabriga dhinaciisa anna qabriga ayaan galay si aan meydka iilka u jiifiyo markii aan dhex dhignay qabriga ayuu meydkii baxay oo u qarsoomay si cajiib ah oo la yaab leh dhammaan dadkii oo fiirinaya arrin la yaab leh ayaa dhacay dadkiina waxay galeen xaalad cabsi ah ragga way takbiirsaayeen dumarkuna way ooyayeen anigana waan argagaxsanaa maxaa yeelay waxay ahayd markii iigu horreeyay oo aan arko dhacdo noocan oo kale ah qabriga ayaan galnay iftiino ayaan ifsanay laakiin ma aanan helin waxbana isla markaas iyadoo dadkii oo dhan ay ku sugan yihiin xaalad wareer argagax iyo naxdin ah ayaan aragnay nin oday oo da' oo taagan meel aad nooga fog kuna dhawaaqaya mayitukum cinda albaab meydkiina albaabka ayuu yaalaa wuuna ku celcelinayay dhammaan dadkii way aamuseen ayagoo la yaaban hadalka ninkan waxayna yiraahdeen yuu yahay ninkan cid garatana ma jirin wareer ayaana ku sugnayn waxaana dhahaynay sidoo albaabka u yaalaa annaga ayaa karfanay oo qabriga gelinay santuuqiina halkan ayuu yaalaahe waan tagnay meydkiina albaabka ayaan ka helnay annagoo wadana 2 santuuq meydka ayayna santuuqi ka soo bixiyeen ayagoo duugeen mar labaad ayuuna qarsoomay santuuqiina wuxuu yaalaa qabriga madaxiisa markii ay albaabkii tageen ayay ka heleen santuuqi naftiisii qaabkiisii ah wixiina ay ku qoran yihiin wiilkan dhalinyarada ayaana ku dhaartay inuu arkay 2 santuuq oo isku mid ah isku waxna ay ku qoran yihiin wax farqiyana uusan u dhaxaynin aslanba dadkan ayaa qabuuraha la yimaadeen 1 santuuq waxayna kala laabteen 2 santuuq wiilkan dhalinyarada ayaana yiri weli uma helin fasiraad dhacdadaas ee daawade maxaad ku fasiri lahayd adigu ilaahay ayaa og saxnimada qisadan laakiin sidan ayaa looga soo guuriyay qofkii laga wariyay aan ku wada salino nabigeena sallallahu alayhi wasallam intaan qiso midaan oo kala ku kulmayno waxaan idin leeyahay dumtum fi ri'ayatillahi wa amni wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh